السلام عليكم صاحبي يا kusoo dhawaada 5 daqiiqo halkan dad ku cusub tahay fadlan subscribe sar si ay kuu soo gaaraan muuqaalo la xiriira filimka habboon oo halka soo gelino muuqaalkani maanta wuxuu ku saabsan yahay macquul ma tahay ama ma laga yaabaa in ay dib u soo laabato habboon oo guriga ka carartay kadib markii waalidkeedu amaba waa waalidka iyadu imika la nooshahay balse aan waalidkeeda dhabta ahayn ay u keeneen nin xanuunsanaya waalan maskaxiyana aan dhammaystirnayn kaasi oo ay damceen inay ku khasbaan balse iyadu waa mid caqli badan wayna iska diiday haddaba arrintani laba weji ayay leedahay marka hore habboon waxaa ay dhigataa jaamacad cidda keliya jaamacadda ka bixin jirtay isla markaasina masruufi jirtay waxa ay ahaayeen reerkii ala joogtay iminka ma oga cidda ay qoyskoodu yihiin sidaas darteed marka hore waxa ay u muuqataa in ay ku adkaan doonto in aysan ku soo laaban sababtoo ah ma jirto meel ay aadi karto wayna adag tahay inaan u malayno inay ka tegi doonto waxbarashadeedii oo ayba wax yar uga harsan yihiin sidaas darteed habboon waxa ay wajahaysaa amaba ay iminka ku dhex jirtaa dilemma ama xaalad isku murugsan isku dhex jirta iskuna dhex falkisan sida ay u maareyso waxa ay ku xirnaan doontaa qaabka in mustaqbalkeedu noqon doono way ku adag tahay inay soo laabato sababtoo ah ma ku soo laaban karto ninkii waalnaa iyo dhibaatadii joogtada ahayd ee la kulmi jirtay balse markaaynu isu barbardhigno aynuna fiirino in sheekadu ay dhab tahay sidoo kaleetona aynu fiirino in habboon ay filimka xiiso badan u yeelaysay waxay u muuqataa in ugu dambeynta lasoo heli doono balse laga dayn doono in ninka la siiyo balse taasi waxay ugu kicisaa qiimo aada weyn sababtoo ah waxa ay guriga kula soo laaban doontaa qoyskii oo qaylo habaar hariiftan iyo dhibaato fara badan ugu keeli doonaa guriga sidaas darteed arrintaas waxa ay ku noqon doontaa arrin weyn oo mushkilad ku noqotaa balse waxay iminka u muuqataa in sida haddii ay ku soo socoto ay maruu soo laaban doonto balse xaaladdu si isu bedeli doonto waxa ay noqon doontaa wax loo joogo qof walbaaba uu dhegta u taagayo halkan kala socda haddaba falanqaynta arrimahaas ku saabsan